السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتي في سومالي ستار maalinta waa isniin saacadu 4 galabnimo ayaan ka soo galnaa magaalada Stockholm oo aan ka soo siideynaa barnaamijkan luqadda ku baxa af Soomaaliga waxaa jira barnaamij kale oo sabtiga soo baxa TV horseed oo 6da soo gala oo laga soo siideeyay ayagana halkan Obna Canal barnaamijka maanta qayb badan ayuu isugu jiraa marka hore waxaan rabaa inaan maaragtay halkan uga mahad celiyo wakiilka ufadhiya Somali Star TV arigaas Ingiriiska London oo noo soo diyaariyay mar walba qalabka ayaa wuxuu booqasho ku tagay Belgium isagana noo soo diyaariyay barnaamijkan wuxuuna ku saabsan yahay barnaamijka qaybta hore Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde booqashooyinkii uu ku marayay arigan iyo Europe qayb labaad ayaa jiro oo iyadana dhinacaas iyo maaragtay Canada laakiin qaybta koowaad ayaa marka hore idin tusaya dib ayaan idin kugu soo laaban doonaa wixii information ah iyo wixii maaragtay feedbackna waxaa noogu soo hagaajin kartaan Somali Star hotmail-ka aan leenahay oo aan kugu soo qori doono qeyltaha barnaamijka qaybta labaad markaan soo noqdo wixii information oo nagu soo kordho waa soo sheegi doonaa maalinta isniinta soo socotana waxaan rajeynaynaa inaan halkan ku casino qaybo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee halkan ku nool wadankan Sweden iyo maaragtay dibad aan ku qaban doono TV horseed ama Somali Star qayb ka mid ah aan sheegi doono week soo socdo week sidaas oo dhan marka hore qaybta koowaad oo ku saabsan Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde iyo booqashooyinkiisa Europe ku soo dhawaada kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan socdaal uu dhawaantan ku tagay magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium Ra'iisul Wasaaraha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde iyadoo booqashadaasi uu halka ku tagayna ay la socdeen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada sida wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirkiisa maaliyadda iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha wafdiga Ra'iisul Wasaaraha waxa uu ka koobnaa Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde wasiirka maaliyadda Maxamed Cali Xaamud wasiirka arrimaha dibadda علي جامع جنجلي agaasimaha madaxtooyada maxamed cabdirisaaq maxamed abubakar madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha maxamed nuur maxamuud gaaribaldi kaaliyaha ra'iisul wasaaraha maxamed cumar waayeel maalintii isniinta oo ay taariikhda ahayd 11 bisha February sanadka 2008
ra-iisul wasaaraha waxa uu la kulmay madaxa nabadgelyada ee midowda yurub mr javier solana waxaana ay ka wada hadleen tallaabooyinkii uu qaaday ra-iisul wasaare nuur cadde iyo goortii loo dhaariyey xilka ra-iisul wasaarenimada dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya oo ku beegnayd 22 bishii 11 sanadkii 2007 wuxuu sidoo kale javier solana ra-iisul wasaare nuur cadde uu ku bogaadiyey sidii loo dardargelin lahaa ciidamada amisom ee africa oo sidii loo sugi lahaa ammaanka magaalada muqdisho qorshaha lagu taageerayo dhismaha iyo xoojinta ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay sidoo kale isla soo qaadeen ra-iisul wasaare nuur cadde iyo javier solana xoojinta dib u heshiisiinta soomaaliya iyo in wadahadal uu dhex maro dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya iyo kooxaha kasoo horjeeda isla habeennimadii isniinta ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen nuur cadde waxa uu la kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee iyagu ku sugnaa magaalada brussels waxaa sidoo kale kulankaasi ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiray ganacsato iyo siyaasiyiin soomaaliyeed oo ka kala tegay wadamada yurub wadamada carabta iyagoo halkaasi u tegay inay la kulmaan ra-iisul wasaaraha si ay talooyin uga siiyaan hawsha culus ee loo dhiibay waxaana kulankaasi uu ka dhacay hoteelkii uu deganaa ra-iisul wasaare nuur cadde ee ku yaalay magaalada brussels hoteelkaas oo magaciisu ahaa radisson waxaana halkaasi ka hadlay ugu horeyn wasiirka arrimaha dibadda oo kusoo dhoweyn doona ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen nuur cadde nuur caddena waxa uu halkaasi ka jeediyey khudbad uu kula hadlayay waxgaradkii iyo aqoon-yahankii soomaaliyeed ee kulankaasi kasoo qayb galay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتا إسلام كبعلي حفلة سفي عن لو سواقا سمي شاريد بروسلز هي بلجيم هي شاريدها كلا يوروب أي سفي عن سواقا سمين الرئيس وسارها هي وفقي سلو سولوينيو محل وين بان كعلمنا محطة أسكا بعدي أنا وما يستاقين هذا البضن حل قابن بالله يساري وحل يساري إنا رئيس الوزراء كسولوي رئيس الوزراء ووفتي قال مدحكا كلها حكومة دانا قدوميه هدية isaga idinka warrami doona socdaalka iyaga Brussels ujeedadiisa iyo howlaha faraha badan ee barnaamijka baaxadda weyn ee aad hadalladiinii ku soo qaadeen ee hor yaalla xukuumadda cusub waxa laga qabanayo iyo sida ay xukuumadda cusub u waajahayso كبعد مركا ورئيس وزراء وجيديو طبعا جاريدو قاركود سو سعودين ساعة فضل إنا يكسو قيب قران شركا كل سؤال واضح بتاعنا سؤالها سو كل ويدين دون تاني رئيس وزراء هي وفديسة حدي وقت وين نوسع أنا وقت بدل ما قعدنا يسان حروي وحن كسر ويني وقعي ميكروفون رئيس وزراء حمداني نور حسن حسين فليتفضل